رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي خير ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug waxa uu kulan kula qaatay ganacsatada Galmudug kulankaasi oo looga hadlayo horumarka deegaanada Galmudug Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo maalmihii la soo dhaafay howlo shaqo u joogay deegaanada Galmudug isla markaana kulamo kala duwan la qaadanaya bulshada Galmudug kulamadaasi oo looga hadlayay nabadeynta dadka Galmudug iyo waliba dhismaha Galmudug cusub oo dawladda federaalka ay qayb ka qaadato ayaa magaalada Dhuusamareeb caasimadda dawlad goboleedka Galmudug waxa uu kulan kula qaatay ganacsatada Galmudug kulankaasi uu isagu ku casuumay Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa ganacsatada wuxuu kala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka iyo waliba dhismaha Galmudugta cusub ee la doonayo in dhawaan laga yagleelo deegaanadaasi dhanka kale Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa ganacsatada waxa uu uga warbixiyay kulamadii dhawaan magaalada Dhuusamareeb iyo waliba magaalooyinka kale ee Galmudug uu kula qaatay bulshada iyo sidoo kale isku dhafka iyo waliba qaramaynta ciidamada Ahlus Sunna waxaan idinku yeernay maantay oo aan u codsaday halkan inaad timaadaan marka ugu horeysa inaan idin wargelino meesha ay wax noo marayaan labo waxa aan damacsanahay iyo saddex markaan intaas idin sheegno inaan idin kala tashano ama aad nagala munaaqashootaan ama aan ka wada munaaqashano xagee baan halkaas ka aadaynaa sidee baan ku tagaynaa dhowr iyo 10 maalmood oo aniga iyo wafdigayga halkan aan joognay waxa soo gashay shacabka reer Galmudug oo xuquuq idinku leh inaad garab istaagtaan oo gacan siisaan yididiila cusub ayaa soo gashay yididiila horumareed yididiila dawladeed yididiila mustaqbal yididiila inay iyagu wax qabsan karaan haddii la dhiiri waxaa markaa rabaa marka hore inaan hortiina uga mahad celiyo madaxda reer Galmudug gaar ahaan madaxweyne Xaaf iyo Sheekh Shaakir oo labaduba gacan nagu siiyay in dadka reer Galmudug ay intay isu yimaadaan gogol dhigtaan ka arinsadaan ayatiinkooda labaduba waxay aqbaleen in reer Galmudug gogol loo fidiyo gogosha magaalada Dhuusamareeb lagu fidiyo gogoshaasi ay dhasho in doorasho lagu qabto furan hufan oo xor ah xalaal ah labaduba waxay aqbaleen inay nagala shaqeeyaan ka shaqeyntaas ama aqbalkaas ay aqbaleen ayaa ahayd tallaabadii ugu horeysay oo horumarka maadaama Sheekh Shaakir uu nala joogana waxaan rabaa hortiin inaan ka cadeeyo in maalintii aan mid ilaa hadda uu noo fudiyay gacan qof loo fidin karo meeshan aan soo gaarnana uu ku leeyahay inta ugu weyn marka waxaan rabaa inaad u mahad celisaan idinkana sidoo kale waxay walaalkay Sheekh Shaakir iyo inta la shaqeysa ogolaadeen in dhammaan hay'adaha amniga ee dawladda federaalka ay ka howl galaan magaalada Dhuusamareeb wayna bilaabeen shaqadii wayna joogaan sidoo kale ciidamadii halkan joogay oo suurta geliyay inay soo gaarsiiyaan amniga gobolka maanta meesha uu joogo waxaa lagu bilaabay maalmihii la soo dhaafay diiwaan gelin haddaba socda oo aan aaminsanahay in mar dhow la soo afjari doono wiilal Soomaaliyeed oo dalkan soo difaacay haddana diyaar u ah inay sii difaacaan waxay ka mid noqon doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada booliiska Soomaaliyeed ama ciidamada nabad sugidda ama ciidamada asluubta taliyayaashii ka shaqeynayana waa ay joogaan marka la soo dhameystiro diiwaan gelinta waxay la mid noqon doonaan ciidamada kale ee dawladda Soomaaliyeed ee xuquuq leh waxaana bixin doona xuquuqdooda dawladda Soomaaliyeed laga bilaabo 1 bisha soo socota haddii Ilaahay yiraahdo marka diiwaan gelintu ay dhamaato dhulka ka soo jeedaan oo Galmudug waxa ay muujiyeen qarannimo iyo dawladnimo aan hore loo arki jirin waxay muujiyeen inay aqbalaan inay isugu yimaadaan magaalo madaxdooda waxay aqbaleen inay khilaaf dhinac iska dhigaan waxay aqbaleen doorasho halkan mustaqbalka inay ku galaan
waxay aqbaleen hubka inay iska soo wareejiyaan laga bilaabo Xeraale ilaa meesha hadda halkaan aan joogno welina meelo kala noo dhiman iyadoo weliba aan fursad u helnay aniga iyo wafdigaygu meelahaas aan idin sheegayno dhan inaan baawur ku tagno oo aanan diyaarad raacin macnaheedu waxay tahay dadka galmudug ka soo jeeda oo aan aad looga hadlin wanaagooda oo kaliya la sheegay kaliya dhinaca khaldan iyaga ka shaqaystay in intaasoo degmo aad isu mari kartid oo gaari ku tagi kartid iyadoo aan cidina ku joojin dhibna aadan la kulmin labada sano soo socota waxaan rabnaa xooggiina ugu badan inaad gelisaan magaaladan iyo galmudug inteeda kale ugu dambeyntii waqti badan ma hayno mar dhow guddi dib u heshiisiin iclaamin doona gogolaa la dhigi doona guddigaas waxa ku xigi doona guddiga doorashooyinka dhici doona inta waxaasi ay socdaan gacan walba loo baahan yahay waxa kale loo baahan yahay qof walba oo idin kamida oo qof reer galmuduga oo meel ka qaylinaysa oo dan gaar ah u qaylinaysa ama siyaasi dan leh ama mid diidan saaxiib la ah waxaan rabnaa inaad tusaale u noqotiin inaad tiraahdiin waqtigaas waa la soo dhaafay danta galmudug ayaan ka hormarinaynaa danta danleyda siyaasiyiinta ugu horeeyaan intaasaan ku soo koobayo ma santiin salaam